daadad ka dhashay roobab lixaad leh oo 24 saacadood ee la soo dhaafay ka da'ayay magaalada Gabiley ayaa sababay khasaare dhimasho hal qof ah oo meydkiisa laga helay dooxa Jiwaji oo dhinaca koonfureed kaga beegan magaaladaasi Gabiley. meydka marxuumkaasi oo aan weli la garan ayaa la keenay cisbitaalka guud ee magaalada Gabiley. intaasi kadib waxa warbaahinta la hadlay barasaabka gobolka Gabiley Xamsan Maxamed Cabdi maayarka magaalada xogayaha fulinta dawladda hoose iyo xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka. hal qof oo meydkiisa laga soo helay dooxa Jiwaji. ilaahay subxaanahu wa ta'aala deeqdiis ay ka mid tahay raxmadda ay noo shubay inuu muddo raadeen raxmadda haddana nusqaanteeduna way la socotaa. isbitaalka waxaa la keenay nin dooxa Jiwaji laga soo helay meydkiisa oo wali aan la aqoonsanin cidda uu yahay ninkaasi. isaguna waxa weeyaan ninkaasi waa meyd waxaan u yahay isbitaalka waa kulli waa khasaaraha ilaa hadda soo gaaray 24 saacadood meel roobka ka daayay gobolka Gabiley. waxaan joognaa dooxa laagta Jiwaji oo soo qaaday nin meyd ah oo halkan laga helay oo noo soo sheegeen dadka deegaanku markii ay saaka waa berigii dhulku iftiimay ay caruuru soo baxeen ay caruurtii aragtay meydka yaala dooxa la rajcin halka waxa yaala waxa weeyaan meyd daadkan uu soo qaaday oo maanta qayladhan ay noogu soo sameeyeen dadkii reemiga deganaa reerahan meydkii waa halka yaala. geesta kale khasaaraha ka dhashay roobabka guga ayaa shalay galabnimadii daadad lixaad leh oo ka soo rogmaday dooxa Laag Barako waxa uu qaaday xubno ka tirsan guddiga abaaraha iyo xubin ka mid warbaahinta ka hawlgasha gobolkaasi Gabiley. daadku qaaday xubno ka mid guddida abaaraha heer gobol oo hawshii samafalkay marka hore wadeen u tagay deegaanka Buusay raashin ku soo qaybinayeen soo noqodkiina dooxa Laag Barako warmalal iyo aagiisa ka galay kan gaamo baxnay hawlo shaqo aniga iyo guddida abaaraha heer gobol Gabiley anagoo ka soo hawlaha shaqo ahaa gurmadka samata bixinta dadka ay abaaruhu saameeyeen iyagoo ay guud ahaan gobolka Gabiley ka corteen roobabka gugu ayaa waxa markaan ka soo noqonnay safarkayga shaqo waxaanu imanay dooxa weyne Laag Barako anagoo ma soo daadku ahaa aan ku galnay qabl xadloo ka daay deegaanka gobolka Gabiley isla maanta ayaa sababay daadad ka soo rogmaday deegaanka Arabsiyo gaar ahaan dooxa Huluuq halkaas oo qaadi gaari nooca loo yaqaan noohada oo siday rakaab ka kooban 8 qof. Allah ha u naxariistay gabadh ka tirsanay dhalinyarada magaaladaasi Gabiley isla markaasina la keenay cisbitaalka magaaladaasi. Cabdi Abdullaahi Daahir, telefishinka caalamiga ee Somali Channel, Gabiley.